Asalaamu calaykum asxaabteyda qaaliga dhamaantiin kusoo dhawaada cooking sucaada dhamaantiin waa cusubtidna kusoo dhawaada family subscribe ka dhinaciisana gambaleel yariis ayuu ku yaalaa gambaleelkaas furta marwal video aan soo gelisay dhaqsani soo gaaran soo asxaabteyda qaaliga maanta waxaa idin wadaa cabitaan aad u macaan badan isku nafaqay kartiin cabitaankan wax badan ayuu ka saacideynaya protein ayuu ku jiraa kadibna ada cayilsantid caata ayuu ka dhigaa cabitaankan ada maalintii 2 bakeer cabtid caloosha waxay u noqonayaa wax cunto badan cunto oo kale soo cunto dhan ma damceysid cabitaankan daacftid fuul ay marka saxabta cabitaankan fuul ayuu ka dhigayaa soo sidaan u sameynaa idin tusinaya marka dabaaqligaas waxaan ku shubayaa 2 qaado oats way mishaarada porridge ka waa kaaseen isticmaalaya marka 2 qaado ayaan baaqligaas ku shubay noocan isticmaalaya noocan way nooc badan ayuu jiraa noocyadin kaleesiina ay ku sameysanaysiin marka sidaas la socdo soo hada asxaabta waa aragteen baaqligaas ayaan ku shubtay 2 qaado kadibna saxankan waxay ii saaran yahay cashewnut way looska cadka waa marka looskan aad ayuu u fiican yahay protein ayuu ku jiraa marka cabitaanka marka lagu sameysto caafimaad badan ayuu leeyahay wuuna fiican yahay proteinkaasna jirkaaga ayuu u fiican yahay fuulna wuu ka dhigayaa wax maanta dhan cunto oo kale dareemeysa kadibna saxankan waxay ugu jira 3 xabo timir way timirkaas ayaan ku darsanaa 2 xabo ilaa 3 xabo ayaa ku darsan kartaa soo sida kale aan sameynaa idin sida marka sidaas la socda sakarta laakiin hada 2 bakeer sameysanaysid 3 xabo timir ama 2 xabo timir ku darso zaaid ayuu u macaanaysaa kadib waxaan sameynayaa biyo ayaan ku qasayaa because porridge kaas inaa qastid waa marka wax yar oo biyo caadi ayaan ku shubay kadibna waxaan sameynayaa si fiican aan isku qasayaa waxyaabahaas dhan aan isku dardaray and then waxaan sameynayaa meel ayaan iska dhigaa ilaa 5 daqiiqo kadibna markuu porridge kan si fiican u jilco markaas idin tusinaya sida kale aan u sameynaa markaad ilaa 5 daqiiqo meel ayaan dhigayaa 5 daqiiqo kadibna insha Allah waa arki doontiin sida kale aan u sameynaa cabitaanka maanta marka saxaabteeda qaaliga sidaas la socda dhamaantiina soo asxaabta hada bakeerigan waxa igu jira caano waa caanaha midkaan isticmaalaya low fat way marka caanahan suugadan ma lagu sameynin just loos ayaa laga sameeyay marka caanahaas aan isticmaalaya marka saxaabteeda qaaliga caanaha waa aragtay noocaas aan isticmaalaya hal bakeer ayaan ku shubay makiinada dhexdeeda waa caanaha mid kalooska laga sameeyay low fatka hada helinin caanahaas dib ma laha badalka caanaha biyo ayaa ku bedelaysaa biyo ayaad ku shiidanaysaa waxyaabaha dhan aan isku dardaray caanahaas heli karin laazim ah biyo ayaad ku bedelanaysaa marka biyo caadi ayaad ku daraysaa instead of caano hal bakeer oo biyo ayaa ku darsanaysaa soo hada waxaan sameeyay waa aragteen porridge kii aan qasay ilaa 5 daqiiqo ayaan ku dhex dar caanaha dhexdeeda kadibna waxaan u baahanahay hal xabo moos marka xabadaas moos ayaan ku darayaa soo asxaabteeda qaaliga asxaabta caanaha heli karin is okay biyo ayaa ku shiidanaysaa muhiimka waxaa loo baahan yahay caano low fat inaan ku darstid caanaha oo difinka laheenin ayaa loo baahan yahay because caanayaasha normalka difin ayuu ku jiraa kadibna hada bacdaan waxa igu jira khalfo waay midka oo la soo shiiday aniga midka diyaarka ayaan soo gatay daaragtidna khalfaha guriga ayaad ku shiidi kartaa laakiin inta shiida lahayd banaanka ayaa ka soo gadi kartaa diyaarka ayaa ka sahalsan soo hada marka waxaan ku darsanayaa hal qaad yariis ayaan ku darsanayaa khalfahaas oo la soo shiiday barbarka marka khalfaha aan ku dar hada diyaar waxyaabaha dhan aan isku dardaray soo hada waxaan sameynayaa waan sii shiidayaa marka shiidaysto waxaa loo baahan yahay wax yariis waqti inaad siisid because loos ayuu ku jiraa iyo porridge ka si fiican inuu u shiidmo ayaa loo baahan yahay daqiiq inuu noqdo soo asxaabta sidaas ayaan sameynayaa marka si fiican aan u shiidayaa waxyaabaha dhan aan isku daray sida timirka oo kale wax yariis waqti ayuu qaadanaa inuu ku shiidmo kadibna hada waa aragteen cabitaankeena diyaar waaye cabitaanka la isku xatay sidaas ayaa u sameysan kartiin waa cabitaan zaaid u macaan badan wax sukar ahna ma ku darin caanahan isticmaaleen waa idin sheegay low fat waaye caanaha mid kalooska laga sameeyay waaye hada helinin laazim ma aha biyo ayaa ku darsanaysaa bedelka caanaha hal bakeer biyo ku darso kadibna sidaan u shiido sidaan ayuu ku noqonayaa hada rabtidna caanaha hada helaysidna caanaha ayaad ku darsanaysaa hada heli karinna hal bakeer biyo ayaad ku shiidanaysaa kadibna sidaas ayaad ku cabaysaa soo aragtan asxaabteeda qaaliga cabitaanka sidaas ayaan u diyaariyay marka waxaan sameynayaa wax yariis korkiisa waxaan ku shubayaa looska asxaabta zaaid ayuu u fiican yahay protein ayuu leeyahay
marka asxaabta oo waxa rabaan inay iscateeyaan cabitaanka markaa cabtid waxay ka dhigaa caloosha maalintii dhan wax cunto oo kale yacni baahi dhan ma dareemaysid caloosha wuu ku buuxinayaa soo waxaa sameynaysiin maalintii 2 mar ay cabi kartiin subaxii hal bakeeri iyo galabtii hal bakeeri aad cabaysiin muddo hal isbuuc dhexdeeda waxaad arkaysaa 2 kiilo ilaa 3 kiilo ayuu ka dhacayaa hadda cuntada diet-ka cuntidna laakiin cunto saliid aad cunaysid cabitaankan kaligiis cabtid wax yacni natiijo ma ku arkaysid laakiin hadda adiga diet-kaada ku jirtid oo yacni cuntooyinka iska ilaalisid waxyaabaha saliidda iyo waxaaseeti kadibna cabitaankan cabtid muddo hal isbuuc waxaad arkaysaa 2 kiilo ilaa 3 kiilo ayuu ka dhacayaa soo saarteed qaaliga ay hob dhamaantii inaan ka faa'iideen recipe-gan codsigiina cabitaanka la isku caatay waa cabitaan aad u macaan badan marka maanta videogan ayaan soo gelin noocan sida loo sameeyo noocyaalo kale ayaan soo wada cabitaamo badan la isku caateynayo marka waxaan rajeynayaa videogan inaan ka faa'iideen videogan marka daa ka hesheen maanta cabitaanka la isku caatay sidaan u sameeyay marka videogan like saar si share gareysay walaalaaga asxaabtaada arkaan ay ka faa'iidaan adamaantiga cusubtidna ku soo dhawaaf familka subscribe ka dhinaysin gambaleel yarisay ku yaala gambaleelkaas furta marwal videoan soo gelisay dhaqseenay soo gaaraan soo asxaabteeda qaaliga cabitaankeena maanta la iska cateynaa sidaas ayaan u sameeyay diyaar waa ku soo dhawaada dhamaantiin adinkan baroway markaas arkaysiin sidoo dhadhamaay macaankiisi soo asxaabteeda qaaliga ay haab cabitaanka caafimaadka leh inaan ka faa'iideen marka videogeena maanta cabitaanka intaas ayuu ka egyahay until then inshallah next video ismaqli doona with new recipe dhamaantiin qeyr badan ayaan dhaafidoni meel walba ka joogtaan and as always dacwada ugu xasuusta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh